السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحرين channelkeena Somali Universe kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena arrimaha bulshada. Asbuucan barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa ninka ugu dheer dunida inaga oo raacin doona liiska shanaad qofka ku jira. balse inta aan gudgalin ka hor barnaamijkeena haddii midaan ay tahay booqashada ugu horeysay channelka fadlan ha ilowin inaad subscribe saarto aadna rukumato buttonka notificationka si ay kuu soo gaaraan fiidiyoodii ugu dambeeyay aan soo upload gareyno. Suldaan Kuusan waxa uu dhashay sanadka markuu ahaa 1982 magaalada Mardaan ee dalka Turkiga. ninkan adduunyadu weligiis ma baran lahayn laakiin sababta dadka oo dhan ay u wada barteen ayaa ahayd in dhirkiisa xaddaafka ah oo dadka ka duway. Agoosto sanadii 2009 ayay World Record Guinness u aqoonsatay ninka ugu dheer dunida kaas oo dhirkiisu gaarayo 2.47 sentimitir. ilaa uu ka soo gaaro da'da 10 sano Suldaan si caadi ah ayuu soo barbaaray balse wixii intaas ka dambeeyay ayuu jirkiisa ku bilowday koriin zaa'id ah kaas oo ku dhaafay dadkii isaga ka waaweynaa. muddo kadib Suldaan waxa uu dareemay degnaan waxa uu ciyaaray kubadda kolayga balse koriinkiisa oo sii badanaya ayuu u ciyaari waayay kubadda kolayga taas oo qasabtay inuu si toos ah u socon waayo oo u baahdo caawinaad dheeri ah. cudurkaasi la soo darsay Suldaan uma aysan suuragelin inuu dhameysto daraasadiisa riyadiisana uma aysan rumoobin balse World Record Guinness ayaa 2 jeer diiwaan gelisay ninkan mar waa dhirkiisa oo ahaa qofka ugu dheer dunida marna waa qofka ugu gacmaha waaweyn dunida. Idor Kofinisi qoyska Idor ayaa ka soo guuray Ukraine una soo guuray dalka Mareykanka. Idor da'diisu waxa ahayd 6 sano balse dhirkiisa ayaa ahaa 1.8 sentimitir. waalidiintiisa ayaa rajeynaya in dhaqaatiirta Mareykanka ay fahmi doonaan waxa ku dhacay wiilkooda. riyadoodii waa ay rumooday markii loo sheegay in wiilkoodii uu ka xanuunsan yahay maskaxda sababta ka dambaysa inuu sidaan u korana ay tahay cudurkaasi. Idor dhirkiisu waxa uu gaaray 2.35 sentimitir. Idor ayaa dhib badan ku qaba dhirkan xaddaafka ah ee uu qabo qaasatan dharkiisa iyo kabihiisa taas oo ay qasab tahay inuu xirto dhar iyo kabo asiga u gaar ah. Idor dhirkan aadka u dheer ayaa sababtay inuu la shaqeeyo warbaahinada iyo shirkadaha caanka ah ee soo saara aflaanta. sanadii 2013 waxa uu ka mid noqday heesayaashii qaranka dalka Ukraine waxaana ku guuleystay ninka ugu dheer dalka Mareykanka. Robertas Bobrovsky aabaha dhalay Robertas oo horey u ahaa laacib ka tirsan xidigaha kubadda kolayga qaranka Romania ayaa bilaabay inuu tababaro wiilkiisa si uu u noqdo laacib ciyaara kubadda kolayga isaga oo jira 5 sano oo kaliya. markii uu gaaray da'da 12 sano ayuu dhaafay dhirka aabihiisa. dhaqaatiirta ayaa sheegay in ninkan dhirkiisu uu yahay dhaxal maxaa yeelay aabihiisa dhirkiisu waxa uu ahaa 2.16 sentimitir halka hooyadiisa dhirkeedana uu ahaa 1.83 sentimitir. markii uu gaaray da'da 14 sano ayuu ku biiray kooxda reer Italy ee kubadda kolayga muddo kadibna waxa uu soo wareegay koox ka dhisan dalka Mareykanka. hadda Robertos waa arday wuxuuna ku hadlaa 5 luqadood si adag ayuuna u tababartaa si uu u xaqiijiyo riyadiisa ku aadan inuu ka mid noqdo kooxaha waaweyn ee kubadda kolayga dalka Mareykanka. Ibrahim Takila waxa ugu horeeya ee dadka ninkan ka fiirinayaan ayaa ah cagihiisa oo aad u waaweyn kaas oo uu rikood ku qaaday laakiin ninkan waxa uu leeyahay dhirir aad u dheer kaas oo dhan 2.64 sentimitir kaas oo ay adag tahay inaad si toos ah ula istaagto. Ibrahim Takila waxa qasab ku ah inuu xirto kabo isaga u gaar ah taas oo ay u ilaalinayso lafihiisa. wax walbana waxa ay bilowdeen markii uu jiray 1 sano kaas oo dhirkiisa gaaray 1 mitir. Ibrahim Takila hadirtaan waxa uu ku nool yahay magaalada Paris waxaana qorsheynayaa in uu ku biiro kooxaha kubadda kolayga dalka Faransiiska. Paul Shishon oo ah nin aad u dheer ayaa dhirkiisa waxa uu gaarayaa 2.36 sentimitir. Paul Shishon dhirkiisa caadi ayuu iska ahaa balse markii uu gaaray da'da 16 sano ayuu bilaabay inuu zaa'id u koro oo dhirkiisa noqdo 2 mitir ilaa uu ka gaaro 2.36 sentimitir. Paul ayaa ku biiray kooxda qaran ee kubadda kolayga
balse muddo kadib way u suurageli weyday inuu sii wado maxaa yeelay waxa uu ka sheeganayay cudurka rheumatism-ka kaas oo sabab u noqday inuu joojiyo kubadda kolayga. Ridwaan Sharbeet. Dalka Indonesia waxaad ka helaysaa qof kasta oo aad weydiiso Ridwaan inuu si degdeg ah kugu geeyo dhirirkiisa dartiisa oo gaaraya 2.36 sentimitir, culeyskiisuna yahay 190 kilogram. Ridwaan ayaa ciyaariyay kubadda kolayga balse waa ay u suurageli weyday inuu sii wado sii ciyaaridda kubadda kolayga maxaa yeelay kubadda kolayga waxa ay rabtaa xawaare sare iyo orod fara badan. Isaga awood uma haynin arrinkaasi koritaanka jirkiisa oo xadka ka sii baxaya awgeeda. Hadafka ugu weyn ee uu Ridwaan leeyahay ayaa ah inuu ku biiro oo uu ciyaaro koox ka tirsan kooxaha kubadda kolayga dalka Mareykanka isagoona sheegay in ay noloshiisu waxba ahayn la'aanta kubadda kolayga. Reerka Ridwaan ayaa ah reer beeraley ah kaas oo beerta qudaarta sidoo kalena dhaqda xoolaha sida lo'da.